نقر لي هذا وحير يقرأ لي هذا معادتك البحر ماذا انتيك جرتا لا إله إلا الله هاي السلام عليكم أخيارتا وان إذن سلامي بغل يطواني أفرت قرآن كعدد ديسان إذن سلامي ومسكينك والالكين يحيى وايه مركا إيغان الرالي هذا أنا كاميرا دي وإسكو حنتهي وحاوي حوغا مدو باكو جرا مركا نينكا أضيغاسان إسكا هاي كل با لعقتا يا حوغا سي إيغا jeebka iga yar xuno waayo aniga ma shaqeeyo marka alxamdulillah rabbil alamin laakiin waan dadaalaya insha Allah biidnillahi kariim waan dadaalaya insha Allah okiyaali ninka dadka waaweyn aan gashana marka waan rajaynayaa inta live ku aan ku jirno waxaan rabaa inaydan idba isoo gelin وإذن بريا إيسو قرائنا يا إيسو قرائنا بقولي تواني أفرت الحمد لله رب العالمين إن شاء الله مركا وايهاي إذا ربط إن لسوق قبطه هسوق قرطه وإذن سوق بنا يعني لإيسو قرائن لكن إذا ربط إن لسوق قبطه يسوق قرطه أسوق قرطه يسوق بعد رتيرادو ديارنا هاي وان سوق بنايا إن شاء الله بإذن الله الكريم مركا وان إذن سوق يا إذا دونيس إن لسوق قبطه وان سوق بنايا موضوع كل بان مانتا كهدلين وحايتا هاي موضوع حساسي يا مانتا كهدلي ربا أنيقو يحيى عبد الرحمن عامر walaalyaal mawluuca anaa kusoo mawluucan ka hadli doona waxaa waaye dowladdan farmaajo oo sanad jirsatay dowladda farmaajo oo sanad jirsatay waxa ay u qabatay beesha la leeyahay waa laga tiro badan yahay oona ka mid tahay dadka baantuuda adeer salaantu waan kaa qaaday hadalka aan isku faham dhageysta mawluucayna wuxuu ku saabsan yahay beesha baantu oo keliya ma ahan beesha macnaha la leeyahay waa la idinka tiro badan yahay dowladda farmaajo oo sanad jirsatay maxay u qabatay dowladdaas maama juula waa ku salaamay عادي آدم كو سلامي ولا شيء عادي آدم كو سلامي مولوعان كهدلي دون وحوية هاي باشا معناها دولة دان فرماجة أو سنة جرستي ayaan rabnaa inaan waxaan iska weydiino waxa ay u qabatay beesha ay macnaha magacay u bixiyeen uu yahay beesha laga tiro badan yahay oona ay Soomaali baantuuduna ay ka mid tahay maxay u qabatay beeshaasayto dowladda farmaajo beesha maxay u qabatay hadday wax u qabatayna dee yaan la xaqirin hala yiraahdo wax bay u qabatay hadday wax u qabanina hala sheego daliisha hala sheego daliishu waxba ma dumiso daliisha sideedaba waxay mistishaa mucaarad yar waaye macnaha dowladda laf ahaanteeda markay maqasho ama macnaha shutayada oo meelahan ugu jira ayaga markay arkaan way baxayaan way u soo sheegayaan waxaas iyo waxaas la idinku dhaliilay ay dhihi karaan baa macnaha mucaarad sidiisa wax ma dumiyo wax buu toosiyaa mucaaradka caadiga ah oo aan hubka wadanin wax ma dumiyo wax buu toosiyaa marka aniga waxaan u baahnahay maanta waxaan u baahnahay ama meeshan aan u fadhiyaa dowladda farmaajo oo sanad jirsatay maxay u qabatay beelaha ay yiraahdeen waa laga tiro badan yahay beelahaasayta maxaa loo qabtay waay ra'yiga taas ra'yigiina ka soo dhiibta waan idin soo qabanayaa
ayadoo macnaha aan jirin wax la yiraahdo macnaha cadaadis ama wax la yiraahdo been abuur oo la leeyahay wax ay qabatay oo ma qaban leeyahay yay dhicin waxay qabanina ma qabanina la yiraahdo waxay qabatayna waa qabatay la yiraahdo waan ku salaamay okay adeer waa amaama juula waa salaamantay kun iyo kow ayaan ku salaamaya walaashay 114 adiga caruurtaada insha Allah waan idin sugayaa maxaa loo aamusan yahay mala baqooya maxaa dhini hub iyo siyaasad miya maxaad ka boqoysay ma hub baa idin dhinac yaala afdhuub ma idin dhinac yaala maya waay afdhuub ma idin dhinac yaalo dar ilaahaad u hadlaysin dar ilaaha u hadla waa idin sugayaa soo qorta ninka soo qorta lii soo qabto waan soo qabanaya diyaar baan u ahay dowladda aan hagaajino aan toosino waxay ku hagaagsan tahayna aan ku dhiirigelino waxay ku hagaagsaneenna haddee aan u sheegno laakiin arrimahaas yaa khuseeyaa waaye beelaha lagu magacaabay waa laga tira badan yahay daay waa idin sugayaa waa salaamantiin anoo mid idin salaami karaynin asxaabteyda way fara badan tahay asxaabteyda dhammaan waan salaamayaa waayo dhe aniga xoogaa cilad yar baa i gashay asxaabta igana raalli ahaada raaligelinana waan ka bixinayaa salaamo axmed xuseen waa salaaman tahay ya raaligelinta aan bixinaya waxay tahay sabdiga iyo axaddaba waad isugayseen hay-adaha saacadahana inaan soo galo ma ahayn aniga tacsiya ayaa igu dhacday nin walaalkay ah dhintay oo Ohio Columbus ku dhintay marka tacsiyadaasaan ku mashquulsaneen nin tacsiya u taalana dee xaq ma ahan in meeshaan soo fariisto marka insha Allah biidnillaahi kariim raaligelintaas waxaan codsanayaa in la iga aqbalo raaligelintaas la iga aqbalo ayaan codsanayaa tacsiyadaas igu dhacday walaalahayga macnaha facebooka aan walaalaha ku nahay friendiga aan ku nahay marka sidaa la socda waxaad yeelaysaan sheergareeya hay macnaha igu xasidina sheergareyntii aan la igu xasidin anigaba idinma xasido maxaa dhac ii sheergareeya adoo farta saa u saara oo keliya waay ma intaasaa xasidnimo iga gelaysaan waxaan rabaa in macnaha anigana facebookgayga uu noqdo facebooka macnaha facebookyada caadiga ah inuu ka mid noqdo ayaan rabaa aniga kama hadlayo maanta Soomaali Bantu oo keliya facebookgayga kama hadlayo hadday Soomaalida weyneed ay wax fiican samay guul okay waayahay maadaama insha Allah zaki waan ku salaamay adeer maama juula adigana sidoo ka Allah raxma raaximiin insha Allah waan ka qaaday maayo dhibaato way dhacdaa waa amar ilaaha watay waaye annaga ma wadanin mana ku xisaabtamaynin inuu walaalkayga sabdiday ama maalinta sabdiga uu dhimanayo kama xisaabtamaynin waa amar ilaah ballantii anaga ballanaan dhiganaa laakiin tii ilaahna waa gaar marka taas iga raalli ahaada 114 iga raalli ahaada facebookana waxaadana sheergareeya macnaha macaamiishayda kale oo hadda diyaarka aan ahayn sida reer Afrika oo kale waxa way badankooda way jiifaan oo way hurdaan laakiinse markay galaan facebookgayga say u helaan marka idinkana u sheergareeya insha Allah principe boos yare insha Allah walaalkeeya naxariistii janna Allah siiyo waa inta macnaha lisku kaalmeyn lahaa waay ama inta ninka macnaha meydka lagu kaalmeyn lahaa intaas waaye in ilaah u naxariisto waaye khayr baa idin rajaynaya marka mawluucayna gelayna mawluucayna wuxuu ku saabsan yahay cidda hadda ku soo biirtay si ay ula socdaan dowladda farmaajo oo sanad jirsatay maxay u qabatay beelaha lagu magacaabay beelaha laga tiro badan yahay oo ay ka mid yihiin Soomaali Bantuuda ay ka mid tahay reer xamariga ay ka mid yihiin reer baraabayaasha ay ka mid yihiin ilaah kuroonade maxaa la dhihi jiray ay ka mid yihiin qoladan la leeyahay gowayaha ay ka mid yihiin maxay ka faa'iideen way dowladda uu macnaha madaxda ka yahay
ninka la leeyahay maxamed cali maxaa cabdullaahi farmaajo maxay ka faa'iideen insha allah aamiin yaa rabbi boosow maxay ka faa'iideen beelaha soo qorta marka aan tala aan kaga dhiibano nin walba wuxuu u arko inay qabatay dowladda ya dowladdu waxay qabatay nin walba si uu macnaha tala uga dhiibto haye yaa la soo qabanaa waay yaa la soo qabanaa waxaan leeyahay aniga kolleyba nin xilqaaday eed qaad dowladda intaasaan u soo jeedinaa nin xilqaaday eed qaad marka alxamdulilah rabbilcaalamiin taas dowladdan u soo jeedinaa nin hadduu xilqaado inuu eed qaadi marka alxamdulilah rabbilcaalamiin soo qorta walaalahey helow xaliima xasan waad salaaman tahay waa ku salaamay walaal waa ku salaamay waan idin salaamay dhammaantiin waa idin salaamay inta ku jirta facebookgeyga assalaamu calaykum waraxmatullaahi baan idin leeyahay salaanta muslimka iyo ay isku salaamaan marka insha allah biidni illaahi kariim walaal adduunya iyo aakhiraba inaan noqono ayaan ilaaha ka rajaynayaa waayo dhe qaar waxay joogaan soomaaliya qaar maraykanka qaar etoobiya qaar macnaha maxay joogaan yurub facebookgaasaan walaalo ku nahay alxamdulilah rabbilcaalamiin insha allah biidni illaahi kariim inta aan ka helayno dad yidhaahda ay soo qabo xoogaa yar waxaan ku nasanaynaa heestaanayto oo magaceedu yahay howlaha arlada cabdikaadir cali aamiin okay waa ku salaamay adeer waa ku salaamay ii sheergaraynta iga xasidin walaalkayow waayo dhe dadkii way wada afrika way wada jiifaan marka waa kaase ninkii raba in lasoo qabtana waa soo qoran karaa wakaa heestaasaan ku nasanayna insha allah beed qadyey warhoy salaamullah adeer salaamullah okay idil soo qabashadaadan ku jira idil maxamed الحمد لله ما شاء الله الله شهر قري ما شاء الله إذن واكو رادين ويا واكو كري لا أيهاي ولا لو سوق هوش آدم كجرا قوشد آدم كجرا قوشد آدم كجرا قوشد آدم كجرا إذن محمد سو قوشد آدم كجرا هذا هاي دررسنين أنا بكو باهن قف أمان الرأي ماشي كديبت أنا أبو أباهن بقف رأي كديبت أنا أباهن
marka adeerku waa ka aamusan yahay isdihin ya de waa kari laaye waa kan maxaa waa diidaya mujeda ay idil waa fadhiiso no Israeli nin baa codsaday raallina iga ahaada heesta nin baa codsaday marka inta oo macnaha israadinta ay socoto waxaan jeclahay in malaq adeer waa salaaman tahay sheergare inta israadinta socoto ha dhibsanina waxaan saaranaynaa heesihii hore oo waddaniga ahaa maanta oo soomaalida marna waana u yahay marna wax sheeg u yahay heeska ka isaga ah waddana waxaa waaye waa gacanta iga dhacday wakaasayto waa laydin saaray dhegaysta hala dhegaysto shuko hala raaxaysto maanta hala raaxaysto inta yar aan idinka maqnaa beddelkeeda raaxadaasayta ayaan rabaa inaan macnaa heesta lagu raaxaysto qaaday eed qaadiyey warho waa diidee hadday ku soo darsameen kuwaas ninkii lamaba igu darsanayn baan raadinaya kan kalena maxaa u kaybsiin waysay kan kale maxaa u kaybsiin waysa wadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo iyo dulqaad ayaa laga rabaa nabadiyo sinaan waa diideen kan laf ahaantiisa iguma jire horta ku dar bala ku dar kan kuma jiro dee idii kuma arkayse adeer waa ku raadinoya farmaajo waa ku jirta haddaan ku raadinoya dee ma ku soo qabanayo adeer magacaas anaabu u baahan magaca farmaajo anaa u baahan adeer wax qabadkaagan raba inaan ogaadee wax qabadkaaga inaan ogaado maxaan yeelaa dee waaba qabashadiiaba kari lacyahay be telefoonka maanta asaga idil adiga balaf ahaantaada qabo qabo dee waa ku soo wacoya saanqadka waa ku jiraa qabo waa ku soo wacoyaaye waa farmaajo qabo waa ku soo wacoyaa sidaata hadda waa ku jirtaa qadka qabo
Okay. شغل عادي الله هذا هم يكروي ولا شيء سدي إذ المحمد عبد الله فرماجو أنا بقول إذ المحمد عبد الله واتن الله كسر كان معه إسلام تمه وكان إذ المحمد الله واي فعنا ضدي قليل هاد إذا هداد قبان كرتيت قبا هذا الذي القبا واكو سو عيسان وخدك واكو سو جرتاي قبا ورادين وياي سو علي ما هو أنا مالكش خمسة إيه بعمروا يا بابا نيك واكو صوت البنو يقبوا كل ما قبوا يتلفون ما بداي يا وكان إذا لي وان حربينو يا تلفون كا إديدن عمانت مقرنا يو أني أدينا مانتا نسكو عصبنا هاي الحمد لله رب العالمين وانا إسديدن هاي كل يبا سيدانا واي وكسو علينا قف هذا برادين وكسو علينا هذه كلية ما قف كستبا ودي دايا ما قد كاينا مياحون ما قرنا ولا لي ما قرنا Sorry. We get it. Still working on them. ايوه باخر سنه يا عداد ننتهي وايا إدلي واي سامان وايا يقرأ لي إدلي عدان أركي مركا مقا مدحوينين أمبان إدفاي مركا تانا يقرأ لي ومر بن إدلي محمد وايا هاي وحان هاي نن وان أخرستي ولال إن شاء الله انت يقرأ لي واي نور حاجي إبراهيم أدنى واكو سلامي إن شاء الله ما أنت وان جعلا ما دام أن مدو خدك كون مغنى أو تعسينا إيجا شيء مركا وحان ربي انت وبيه اوكي بكل ولا بدا صورته اوكي سي ما بقابلين بقول قابلنا بين هذا مركا إن شاء الله بإذن الله الكريم وإن شاء الله سيدا معنا أن وصاحبنا ميشانيتو الدنيا آخرنا التاس إله نوو وافجيو مركا أنت ميشتان أنيقا مجعلي معناها إدنكم معاينا يو ميشان إدنا أمان أوصل لهين كما أمانة يعني لغا ما يابو إد آن أمان لهين ميشان كما أمانة يو
cid awsan ay lahaynna meeshan ku cayn maayo cayn micnaa ugu soo jeedin maayo marka walaalayaalow marka waxaan rabaa inaan micnaa wax aan istusno oo keliya waayo dhe annaga waxaana lagu tiriyey beesha laga tiro badan yahay haddee mar haddiina laga tiro badan yahayna waxaan aniga go'aansaday in aan isweydiino dadka soomaalida samaha jecelkow iyo inta maanta aan isku beesha nahay in aan isweydiino muxuu noo qabtay ama maxay noo qabatay dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxda ka yahay oo ka jirsatay maxay noo qabsatay waana oh bye gayare waa ku salaamay kadra muuse miya magaca khadra muuse ahe waa iid la ninkii intana waxaa waaye waxaad arkaysaa nin rag ah sawirkiisa sawir naageed uu yahay marka adiga naagum baad ugu yeeraysaa dee maxaa kala samaynaysaa wuxuu ku leeyahay haddana naag maahi saaxiib ilaa caawa telefoonkanaan kaa soo garaacayo kii kale wuu qabsami waayo iidle baa la yidhahdaa adna idil gabadh baad iga dhigtay xaal baa lagugu leeyahay xaalka bixi waa bixina waan bixinayaan ku dhahay codkaaga waa yaraanaya maxaa dhacay may maqlaysaa hadda haa waa ku maqlay haa aad baan kuu salaamaya ugaas aad baan kuu salaamaya kolley waad maqashaan umalaynaa mawluucaan ka hadlayna waad maqashaan umalaynaa dee mawduucu waa iga horreeyey mawduuca lama socdin laakiin waa markaa ninka odayga aan arkay un baan meesha soo galay kolley baa anaa kuu sheegaa madaxweynahaynana kolley waa kuu saaran yahay waan u jeedaa sawirka madaxweynaha qofka u saaran soo adiga ma ahan aad iyo aad okay nin fiican baa tahay dadka aan jeclahay ama aan raadinoyaad ka mid tahay oo macnaha su'aasha aan rabo jawaab iga siin kara si wanaagsan okay meeshan waxaa waaye annaga dowlad la'aan baan ahaan jirnay dhowr iyo 20 sano dowlado yaryar baa meesha yimid alxaasil markii dambe waxaan helnay dowlad oo aqlabiyad weyn lagu doortay oo maanta cid diidayna aan lahayn oo la yidhaahdo dowladda micnaha 8 February maxamed cabdullaahi farmaajo si wanaagsan okay aniga xasan cali khayre ani waxba weydiin maayo waayo dhe xasan cali khayre asaga waa nin oo macnaha wax loo dhiibtay oo la yidhi macnaha dad adiga kula shaqeeya soo dhiso asaga waa intaa laakiin ninka eedda iyo wanaagaba oo dusha saaranaya waa maxamed cabdullaahi farmaajo si wanaagsan okay marka waxaan rabaa aniga sanad dowladda 8 February sanad guuradeeda waxay ahayd daraaday ahayd inay hal sano ay jirsatay sanadkaa ay jirsatay ayaa waxaan u baahday ama kale dadweynaha ay iga codsadeen inaan micnaha aan meeshan facebooka aan ku weydiiyo dadka caqliga u saaxiibka ah oo aanan qabaa'ilka u saaxiib ahayn oo waxa jirana sheegaya waxa aan jirinna ma jira leeyihiin inaan weydiiyo bal sanadka dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxda u yahay masaakiinta oo lagu magacaaway beesha laga tirada badan yahay ilaaha tiro weyne oo laga badan yahay waxa uu u qabtay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladdiisa beelahaas waa gartay marka haddaad adiga wax nooga sheegi karta inuu wax u qabtay iyo hadduusan wax u qaban oo ilaahna kula og yahay hadduu wax u qabtayna dee waxaas iyo waxaasuu u qabtay dheh hadduusan waxba u qabaninna dee waxba uma qabanin haddii wax qabashadiisa ay soo socotana aad wax ka og tahayna waxaas iyo waxaasuu soo wadaa dheh marka anigana haddaan su'aal ka yeelanayo macnaha jawaabtaada markaasaan kula socodsiin karaa
soco horta aad baan kuu salaamaya saaxiibow maadaama aad halkan aad igu macsuuntay facebookaga aad baan kuu salaamaya marka koowaad ma garat waaye sheer gare waana sheer gare ya salaantu waa insha ka allah marka labaad salaanta labaad waa ka dowladdeena qaaday sharafta malaa'ika badan ku salaanto marka labaad dowladdeena sharafta badan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha golaha baarlamaanka golaha wasiirada dhammaan waa salaamaya ma garatay waaye anigana sidoo kale adduunyada waxa weeye wax waliba meel bay ka bilowmaan meel bayna ku dhammaanaan soomaalida waxay ku maamaadaa far keligii fool ma dhaqdo madaxweynuhu keligii wax ma qaban karo haddaan la shaqaynin wuxuu ku shaqeeyaa ra'iisul wasaaruhu isagu soo magacaabaa ra'iisul wasaaruhuna wuxuu soo magacaabaa xukuumad xukuumadda markay isla qiimeeyaan oo ay isla gartaan baarlamaanka la horgeeyaa baarlamaankuna waa ansixiyaa ma garatay gartay madaxweynaha markaa soomaaliyeed isagu waa weylol amrigii weeye waa mas-uulkii ugu sarreeya waddanka ee saxeexa ugu dambeeya wixii inta kale isla soo gartaan buu isagu saxeexaa qabiil gaarana uma shaqeeya wuxuu u shaqeeyaa ummadda soomaaliyeed oo dhan buu aabbo u yahay saqiir iyo kabiir marka taas waa taas midda labaad gartay madaxweynuhu waxa weeye anigu ma aaminsani wax la yidhaahdo been laga tiro badan yahay wax la yidhahdo anigu ma aaminsani ummadda soomaaliyeed dhammaanteen waa siman tahay qabiil ka badani ma jiro qabiil la tiriyey oo la yidhi qabiilkaasu ka badan yahay ma jirto horta anigu sideedaba wax qabiil laga tiro badan yahay la yidhaahdo ma aaminsani ma garatay gartay khayr allah ku siiyo ummadda soomaaliyeed waa siman tahay qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya oo soomaali u dhashay waxa weeye wuxuu xaq u leeyahay baa qof waliba xaq u leeyahay marka madaxweynuhu wuxuu ilaaliyaa maslaxadda guud ee soomaaliyeed qolo gaara mas-uul gaara kama aha qolana si gaara uma ilaaliyo qolana si gaara uma diidano ma garatay gartay maamujula waa salaaman tahay hay wixii uu qabtayna ummadda soomaaliyeed oo dhan buu u qabtay waa ognahay waxyaalo badan bay xukuumadda iyo madaxweynuhuba ay qabteen alxamdulilah hal sano keliya bay joogeen marka waxaan leeyahay wax badanoo fiicanna waa inoo soo socdaan madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday in dadka danyartaa sharciga la ilaalin doono ciidamada qaranka la dhisi doono soomaali ay siman tahay marka waxaan idinkula dardaarmayaa qof kastoo soomaaliya inuu soomaalinimo wuxuu ku waayey beel tiro badan iyo beel tiro yar midina ma jirtee laguma helayo marka soomaalinimada ha la wada ilaaliyo dowladdan aan garab istaagno qof kastaa meel kasta uu joogo ha ku xisaabtamo inuu yahay safiir soomaaliyeed arrintaana haddii aan laydma 2020 haddii ilaahayna gaadhsiiyo 4.5ka iyo waxaan markii hore xal baa la mooday laakiin xaq ma aha waa xaq darro waana ka soo horjeeda anigu waxa la yidhahdo qabiil laga tira badan yahay ummadda soomaaliyeed waa soomaali waa siman tahay qolo ka badan ma jirto madaxweynahana ummaddiisu waa u siman tahay waxaana aaminsanahay ilaa hadda inuu ku dhaartay wuxuu u dhaartay isagoo kitaab ku maray ummadda soomaaliyeed saqiir iyo kabiir inuu aabbo u yahay meel kastoo ay joogto maslaxaddeedana uu ilaalinayo marka taa in la wada aaminaa fiican madaxweynuhu qabiil maaha waa madaxweyne soomaaliyeed buu u dhaartay dadkuna waa u siman yihiin waayahay walaalkay hal su'aala iga kaa dhiman ku weydiin karaa si wanaagsan haa way weydiin kartaa madaxweynaha waan ognahay inuu ummadda soomaaliyeed u dhaartay madaxweyne soomaaliyeedna uu yahay inuu yahay madaxweyne soomaaliyeedna waxaanba ku ogahay aniga anaa doortay aqlabiyadna waan ku doortay waxaan u doortay aqlabiyadda aan ugu doortayna dee micnaheeda inuu madaxweyne daacad yahay darteedaan ugu doortay koowdhe si wanaagsan waa yahay marka madaxweynaha aniga eedda aan ka tirsanaya waxay tahay aniga haddaan ahay macnaha haddayba soomaali weyn ahaan ayaan ka hadlaya oo khaasatan beesha laga tiro badan yahay beelaha laga tiro badan yahay laakiin hadda markaan aniga beeshayda aan soo qaato oo soomaali baantu ahaan aan u soo qaato aniga dhowr gobolaan degaa hiiraanaan degaa waxaan degaa jowharaan degaa waxaan degaa ilaahay eelayda dhexdeeda koonfur galbeed iska badda shabeellaha hoosaan degaa jubbalandaan degaa jubbaland ma dhihi kara ani jubbada dhexe iyo jubbada hoosaan degaa ma maqlaysaa alxaasil aniga meel aan maanta aan raxmad aan ka haysto meelaha aan kuu soo sheegay midna kama jiraan madaxweynahaygana waa og yahay qolooyinka aniga saa ii caddibayana sanadkiiba mar waxay yimaadaan xamar bay yimaadaan
waxaa la yidhaahdaa guddiga ammaanka miyaa ma ogi meeshay ku shiraan madaxweynaha ay hor fadhiistaan hadday madaxweynaha hor fadhiisanna ra'iisul wasaare ay hor fadhiistaan ayagoo gacan ku dhiiglayaal ah oo maanta xukuumaddii ay madaxda u ahaayeen ayagoo dhex joogaan oo dad lagu dilay dad lagu kufsaday si kasta lagu yeelay haddana intay madaxweynaha soo hor fadhiistaan ayay ka sheekeeyaan amni bay ka sheekeeyaan madaxweynaha taasayto muxuu wax uga qaban waayey jowhar baa dad lagu dilaa oo maanta naagaa lagu kufsanaa balcad baa dad lagu dilaa oo dhowr kilomitir xamar u jirto maxaa la jira afgooye sidoo kale maxaa la dhihi jiray kismaayo daraaday ahayd kismaayo wiil masaakiin ah oo gurigiisii loogu tagay oo la mudmuday oo la durduray qoladii maamulkii oo maanta hoostooda lagu durdurayna haddana inay baxeen in kale ma aqaane xamaray ku shirsanaayeen gole amniyaa la sheegay bal yay amni u yihiin haddii dadkii masaakiinta ayagoo hoostooda jooga oo sidaa loo dilayo oo raallina ay ka yihiin haddana ay imanayaan magaca soomaali ayagoo huwan oo maanta ay leeyihin amnigii soomaali ayaan badbaadinoyna adeertaa ka waran oo madaxweynahana raalli uga yahay may maqlaysaa adeer waa ku maqlayaa horta magacaagii hal mar iigu celi yaxya shuuku caamir la yidhahda ama yaxya ama haddii maraykan aan jooga maraykan ahaan haddaad rabteen camiir yaxya la yidhahaa reer caamir maa tahay reer caamir runta ayaana reer caamirka keed u malaynaysaa laakiin adiga caamir xuseen عامر حسين عامر هياس شوكو عامر عبد الرحمن عامر حسين عامر قاسم عامر قوري حسين عامر ما تقانا قوري حسين عامر ولا شيء المعذير ما شاء الله وروا إيش صاق الله يبقى قبلنا وحنا وذا تشوقني كينيان وذا تشوقني ما قرأت قف قالي يا هيدا أنا بعادي هاي كينيا هالكي دقح لي مية دقح لي يس هذا دقح لي هاد المية بجوغا هذا تقاني ما غانو كل بعدي قوري عاد بوغاتين قبر لي هذا الرقيو ونين كذا محدين لي هذا ويل عبد الوهاب لي هذا من يعوكم مقعداريو dadkaasoo dhan waa aqaana family baanu ahayn weliba de kuwaas hadda aan gadaal ka sheegay ilmahaygu anaa dhalay adeer aad baan kuu salaamaya family arrinta aad sheegtay horta waa runtii horta waa qalad anigu waana cambaaraynaya arrimaha ma garatay haye waxa weeye madaxweynaha soomaaliyeed raalli kama noqon karo waxaas nin odaya baa tahay aad baan kuu sharfayaa madaxweynuhu waa shiksi muqdishuuna joogaa meel kastana Soomaaliya dhibaatadu waa ka jirtaa maalin walba meel kasta dadka lagu laayaa ma garatay haye wadankeena waad ogtay dawladdu gacanta kuma wada hayso dad shadaadiina baa jooga argagixisay iyo balaaya ka howlgasha dad Soomaalinimada diidan baa jira dad xaq darro iska bartay oo 30kii sano ee dawladdeenu burbursanay ama 28kii la yiraahdaba xalaalaystay xoolihii dadka iyo dhiigoodii iyo maalkoodii baa jira oo dawladnimada diidan waxa weeye marka waxa loo baahan yahay xilligii dadka loo xaq soori lahaa horta lama gaadhin ma garatay hay laakiin dawladdu waa dadaalaysaa wax kasta oo jirana waa la og yahay qof kasta oo dambi ummadda Soomaaliyeed ka galana xilli aan dheerayn waa lala xisaabtami doonaa oo waxa weeye ama maxkamad ha la saaro ama ciddii wax u geystay xaqeeda ha looga qaado ama xabsi dheer hal la geliyo insha Allah waa la xisaabtami doonaa marka waxaan codsanayaa beesha aad u hadlayso caawa Soomaali Bantuuleeyada waa beel sharaf leh waa dad Soomaaliyeed waa dad aad in loo qadariyo mudan Soomaaliya la'aanteed ay jiri karin marka uma qabo anigu wax dulmi ah oo gaar oo iyaga loogu talagalay ama lagu xumeynaya inay jiraan laakiin dhibaatada Soomaaliya ka jirta bay qayb ka yihiin ma garatay okay waayay goowde hadalku waa soo gaabsanayna dad kala isugaya marka dambe aan soo gelayo aniga sabti iyo ahad ayaan soo gelaa hadii wax dheeraad yimaadana waa soo gela laakiin sabti ahad haday dhibaato igu dhicin waa soo gelaya marka waxaan ka rabaa su'aalaha kale aan ku qabo mar kale aan ku weydiinaya nin oday oo fiican baa tahay oo macnaha oo muxtarim ah waana ku xirmeynaya walaal khayran ku rajaynaya hadda inteed joogta adiga aniga waxaan joogaa wadanka Ingiriiskan joogaa adeer okay waaye waa ku salaamaya adeer meeshaada khayr Allah ku kaaga siiyo minta ku ag joogtana waani oo masaakiintaasayto
dhibaatada lagu hayo ha laga daayo dhibaata iyaga u gaara way jirtaa waayo dheh afarta beelood waaweyn oo xiniinyaha waaweyn isma taabtaan hadda way kala baqaan laakiin waxa wax la yeelo un waa dadkan yaryarka lagu tilmaamay un waay daacadda haddaan u hadlayno waya laakiin dadka qowraha waaweyn leh isma taaban karaan way isfiirinoyin xuquuqda dalka dhan ayagaa qaybsaday afartaasaa qaybsatay afartii qoriga qaaday waay cid kale la ficiltami karta male nin aan dad dilingna soomaali qayb kuma laha waayo afartaasayto daday dishay daday dhacday wax kastay samaysay laakiinse kan aan wax dilin in macnaha laga aamuso aniga taas ma qabo insha allah waynoo usbuuca dambe markii dadkan kala soo qabanayaa dadka ingiriiskana iigu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعض ما صنت هذا وايا لكن ليش هتشوفتي يمات عدام مدن هذير عدام مدن السلام عليكم عليكم السلام كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ninkaas koley waad maqlayseen wax alla wuxuu ku hadlay idii macnaa hadalkiisa qabtan way ka hadli kartaa assalaamu calaykum maama jula ها ايه ورا بابا في عنتها وفي عناي ولا شيء وفي عناي واكو السلام walaalkay marka ugu horeyso waxaan ku leeyahay Allah yarxam raaximiin abo Allah u naxariisto ilaahay amiin ya Allah آمين يا الله آمين ولا شيء. ما أنت وحواي عاو حلقة هذا القوى مخلاي ده مش كسرته. ولا من حتى لا. هاجا كسر دوا عدك. waxaan ku dhahay marka ugu horeyso waxaan ku dhahay marka ugu horeyso halo codka maya waa hadlaysa hadda codkayga ma maqashaa an naftkayga kalaashka xawaa ila qabtan ها waxaan ku dhahay horta barnaamijka horta meeshaan jiro waxay tahay oo maanta aan ka hadlayno dawladda waxay tahay maxay qabatay sanaday jirtay ma ahana caaw waxa oo meesha laga maxay qabatay lama beelaha lagu tilmaamay macnaha beelaha lagu tilmaamay kuwa yaryarka lagu tilmaamay oo Soomaali baantuudan ay kamid tahay macnaha reer xamarkana uu kamid yahay gobayana uu kamid yahay maxay u qabatay sanadkan ay jirtay soo dawladda farmaajo horta waxa waay horta walaalkay markaan ku sheego marka ugu horeyso ma ahan farmaajo kaligiisa hadda ma dhihi karno ilaa aan dhaliilno dhahno muxuu qabtay hadda dawladdan sanadka joogto beelahaas horta oo la sheega oo ka hadlaysid ma ahan bantuo ama jareer ama heer xamar keligooda ma ahano wixiiba ay ku tilmaameen 4.5 ay ku tilmaameen ilaa 60 ilaa hadda waa waxa dhibaatada haysata ma ahan mid cusub hadda oo ku bilaabanaysa ma ahan waan la ogyahay taas laakiin asaga wuxuu yiri wax baan u qabanaa waxa u qabanaa wuu yiri dawladda horta waxa waa hadda waa sanad waa intay shaqaynayso aniga ahaanteeda fikradeyda waxay la tahay sida hadda wiilka iga horeeyo ku hadlayay iidloo kale fikradiisa horta waa ku raacsanahay waxa waaye dawladda horta waxyaabo badan oo waxaa haysto culayso badanaa haysto sida ila muuqato maxaa dhacay madaxweynihii markaas soo korabo horta waxaa arkaa Soomaaliya fursad ma helayo oo maanta ay waxay rabaan ay ku qaban karaan maxaa dhacay Soomaaliya ma ahana anaga dhexdayna in is haysano Soomaaliya haddaan fikiray banaanka laga haystaa waxa waaye dadkeena wadanka dhulkayna waxaaba nabadda loo diidan yahay marka waxa waaye dadkan kalena meelaha kale waa horta midaas dhalishaas horta waa jirtaa khaladkaas aniga barmar waa fikiraa marka waxa waaye khayr ra'iisul wasaaraha madaxweynaha way baxaan gobolada meel kasta way aadaan dadka way la kulmaan laakiin dadkan kale hadda laga hadlaayo
oo la dhahayo dadka oo waxa waaye maanta oo laga tirabadaya ay ku tilmaamayaan wax laga tirabadaya horta ani ma arko wax oo tirakoob la sameeyeyna ma laha cid ka xoog badanna ma laha haddii qofka yani ay diidaysa xataa inay dhig islaameed gasho maahan in la dhaho waxay dhahay waa ka tira badannahay intaas waxa waaye wax badsi dhul ballaarsi waaye maana ma ahan wax oo qof ka tira badan ma jirto qof maanta oo ka awood badanna ma laha laakiin markii qofta ilaahay ka cabsatay dhahda ani ma raba dhig islaameed inaan galo ma raba inaan maanta qof islaameed maanta inaan isku dilo dadaa maanta ku dhahaya aniga aakhiradaydan ka fikiraa ma raba inaan maanta aan galo xaq islaameed qofkaas marka waxaa loo arkaa inuu qofka oo laga awood badan yahay ma ahan ilaaha awood le qofka awood badan ma laha marka aniga waxaan qabaa dowladdii horta ilaahay inaan u duceyno ilaahay oo maanta culaaskan haayo oo ka fududayo marka waa lagu dhegaya meel kastaa laga haystaa jacans ay ku dhaqaaqda male kow taas waa midda labaad xataa ayakana waxaa la rabaa xaragaad yar xataa inay sameeyaan horta dowladda dhilisha kaloo hata aniga dhinaceyga xataa aan ka siinayo khayraa joogo oo madaxweynaha joogo hal mar xataa inay baxaan ay la kulmeen dadkan kale ay dhaheen maanta dadkaasaa aadayna aan la kulmaynaa weli ma dhicin laakiin meelaha kale waa aadaan waa la kulmaan horta dhalisha waa jirtaa taas midda kale waxa waaye ilaa iska sabra intaanba waa la sabraya ilaa 60 ilaa inta waa la joogay waxa waaye ilaaha joogaa la dhahay inta haddana intaan kalena la adkaysta aragna balto wallahi wax maxaa kala sheeg mahayna ilaaha jooga waxba waa ilaahay wuxuu yiri adiga waxa waaye aqliyaan ku siiyey gacanaan ku siiyey facaaga iska celi hadduuba micnaha gurigaaga iyo aradaada iyo waxaaga kaaga soo dhab maxaad ka dhoorsani صح aye marka waxa ay dadka waa xota way jirtaa taas laakiin waxa waa ilaaha joogo inta buwal jooga hadana aragna sanadka labaad kala hadana haday si socoto ee 2 sano lugta lala galo oo waxa madaxweynaha aniga naftirkeen dhalisha horta aad iyo aad way jirtaa waa leenahay dowladdeena inay maanta ay dadaal badan ay samayso ay hor u socoto kulli insha Allah inay gaaraan akhbaariyaashana inay yani plan Allah kaso ay hor u sii socdaan culaasahan badan oo hayna inaan u duceyno inuu ilaahay ka qaado aniga nabada maanta ayagana laakiin hataa afgooy halkaas inay yimaadaan Allah aan ugu duceyno meelaha kale balcad iyo maxaa la dhihi jiray oo dhulkaas jowhar iyo inay tagaan ma bakaraayeen dhexdaasaba loo joogaaye tabartoodan baxmaray ku ekaatee tabartooda marka ilaahay gobolada iyo macnaha masaakiintan oo beerahooda laga haysto oo ilaaha ku roonaada nin ka yimid gobolada dhexe oo leeyahay beertan anaa iska leh biyihii ay webiga ku waraabsanayeen biyihii la hor jooga oo waxaa lagu daajinaa beerihii ay samaysteen iyo intaas bilood beertii asaga qodanay ayaa la gelinoya marka dhibaatadu way weyn tahay ilaaha jooga lama dhihi karo maama Juula arinku waa xun yahay ما إله جوا إله وحكوين هرت مالها كودة إله دلالو ماما إله دلالو كيري ما هي إله جماعة إسكور ساركم مدين عداد جماعة إسكور سارتين أدفع إسكالين وايسين وإله جوا أترادي إله حجيس عذاب باكوت على ما هي وحفا إيدكم مجران ما تصح واي لكن متى عرق حتى أنا مثلا horta madaxweynaha kor wuxuu aaday afgooy hataa la socotay afgooy markuu aaday waa aragteena umalayna xoogaa barbaleeba dhibaatooyin badan meesha ka dhacay yacni dadkan ay sheegaysa hadda aad dhehaysin yacni waxa waaye yacni dadka afarta ugu xoog badan ilaaha xoog badan horta ilaahay waxa waaye dad oo ilaahay iyakan iimaanka allah u sugo marka qofka horta iimaanka la horta wax kasta la isku dhaamaa ilaahay iimaanka u soo umada allah geliyo waxa waaye meesha dawladda ay u dhaqaaqdaba haddii lugaha laga haysto marka waxa waaye ayaantaasna problem oo xoogaa kala soo kulmay meeshaas marka dadkaasaa meel kasta kasoo hortaagan waa aragta dhibaatooyin badanaa dhacay khas badanaa lahaayaa say ku dhaqaaqin ayakana ma ahan dawladdan koraa laga haystaa dadka deriska nala banaanka naga haysto dadkan waa la maamulayaa waxaan howlahan howla kor ka socdaan waaye marka inaan ilaahay tuugno ilaahay dalka nabad allaha naaga dhigo wadanka waa u baahannahay anaga xataa qurbaan joognaa qurbihii waa ku rafaadnay waayahay khayran ku rajayna
dadkaanan u gelaa kulley qasaaya xuseen waaye waa ku salaamay sumaya waa ku salaamay عذارة إذا بنت كلو كدرا وحياة هرتا إن الدولة أو دعين وحياة هرتا آدي أو بهاي أقول لي تان ما تقربنا تدك جوجا دبعتها هاي ست هويينك ilmihi gaalada ka wada qaateen qaarkood oo maanta hooyo ilmahooda isaysanin dhibaatooyin badanaa jiro hooyo dhaxa ooynayso dhayso wadankayga inaan u noqdaan rabaa marka culayso badanaa jira aan duceyno ilaahay tawfiiqda allahna waafajiyo culayskan badanna soomaali aada u dhibtoonnay dhibka allah naga qaada dowladan allah noo adkeeyo wax kaloo insha allah waaye khayran ku rajaynaa okay ismaan lama filaan walaalkay waa ku salaamay 114 beryaan warkaaga waan waaye aadan cabdullaahi sidoo kale waan idin wada salaamay dhammaantiina mawluuca laga hadlayana waxaa weeye annaga waxaan nahay dad soomaaliyeed aan ahaane laakiin waxaana lagu tilmaamay beelo annaga ka mid ah waxaana lagu tilmaamay beelaha laga tiro badan yahay okay oo ay ka mid yihiin goboye Soomaali Bantu reer xamarka adiga waa badan yihiin okay haddii maantadaanay afar isku tilmaantay dadkii xiniyaha waaweynaa oo ay yiraahdeen anaga waxaan nahay dad qanaan nahay anagana dad nusna lagu tilmaamay 4.5 na loogu tilmaamay marka ninka la leeyahay madaxweynahayna cusba oo aan aqlabiyada ku dooranay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiiradiisi iyo ra'iisul wasaare khayrigiisi maxay u qabteen 4.5 maxay u qabteen hadday wax u qabteenna dhaha wax bay u qabteen haddaana waxba loo qabanayna dhaha waxba looma qabanin waa intaasayto qaladna yaan la gelin wax la qabtayna lama qabanin yaan la dhihin taas ilaahu aakhirun ugu cadaabaya laakiin wixii la qabtay waa la qabtay dhaha wixii la qabanina lama qabanin waayo de mucaaradka wax buu toosiyaa maayo wax ma hadleeyo mucaaradka wax hadleeyo waxaa way kan hubka wata annaga hub ma wadano khaasatan haddaan Soomaali Bantu nahay waxa annagana loo cadibayo waxaa way inaan dad dilnaan diidnay nin dad dila unbaa Soomaali dadka ah afartan waaweyn lagu leeyahay wax kale ma aha waa dad wax soo dilay laakiinse dadkan nuska reer xamarka aboowe baaslee kanna waxaad leeyahay aan aakhira ka abside adiga dadkii dhanba saasay kala noqdeen reer xamarkana xoolihiisa la dhaco dibigiisa la furana waxaas ku leeyahay adiga bax qaad suuqa gee anigana suuqa imaana waa soo gadana haddana waa soo ceshana marka dadkii noocaas ahaa ayaa 4.5 lagu magacaabay haddaba 4.5 intii inta ku jirta imaqloyso iyo inta 4.5 ba u naxayso oo Soomaalinimada ay ku weyn tahay war dawladdan wax may u qabatay sanadkan ay jirtay dawladdan wax may u qabatay reer 4.5 mise wax uma qabanin de soo dirsada ninkii qabasha rabo waa soo qabana soo qorta la soo qorto maxaa loo aamusan yahay la soo qorto waa la isku dhegan yahay ku dhaw waa la isku dhegan yahay yaan la baqin ama Maraykana joogtaa been yaan lisu sheegin ama Yurubad joogtaa ya ama Ethiopia joogtaa ya dee soo qorta inta aad ku soo qoranaysaan heestaasan ku sugaynaa oo wadaniga ah alla dhegeysto heesta alla dhegeysto ninka wadaninimada ay ku weyn tahay heesta dhegeysta kaale wada ii fur balkan kan ii taabo bal waa demi balkaasa demi ii taabo aadan cabdullaahi haye maxaa loo aamusan yahay cusmaan lama filaan maxaa loo aamusan yahay dal nuurshe sumayo soo hadla soo qorta ware kaalide taabo
حاجة تعود يشت بالك لا إلا كاسبة ما يعني لين هيا ما أنا سو صار هيا war aawi dadkii dhiirana aawi ya ma gadaalaad ka baqoysiin gadaal maad ka baqoysiin hadla aya anigana heestan aan ku yarnasana haddii aad isoo qoran wayseen oo aan tala isku dhiiban waynay heestaasaan ku noqonaa sheergareeya un ismaanow hala sheergareeyo waayo aniga dadkii macaamiisha ila lahaa sabdidiga ahadday i sugayeen ahaddi subxii iyo sabdiga subxii ma soo gelin nin walaalkeyga ohaayo ku dhintay madmoos nin la yidhaahdo waad wada taqaanina umalayna marka tacsiyadaasaadna gashay nin tacsiya gashayna dee ma noqon karto inuu micnaha facebook galo marka sidaas darteeda raalliga ahaada walaalayaalow laakiin ii sheergareeya sida asxaabta maqan oo reer macnaha hadda soomaaliya ama reer africa way hurdooyin laakiin waxaan rabaa markii ay soo kacaan si ay macnaha oo ay u arkaan ay macnaha u dhegaystaan mawluucii laga hadlayay mawluucan haddaan idinku celiyo waxaa waaye waxqabadka dowladda farmaajo sanad jirsatay iyo 4.5ka dadka 4.5ka waxay u qabatay assalaamu calaykum waraxmatullahi hoogaa waa nasanah محمود موها وسلامن تاي أدير محمدو وسلامن تاي بقول كيبا بقول واكو سلامي كسو دواو فيسبوك يا عادم كسو دوينا مولوع عن كارل يا محمد مجيجي محمد مجيجي ماري واكو سلامي walaalkay waa ku salaamay mawluucan ka hadlayna maanta markaan wax yar aan kaaga sheego majiiji adaan kula hadlayaa abwaan baa tahay oday baa tahay mawluuca laga hadlaya wax kale ma ahan sanad jirsiga dowladda farmaajo oo sanad jirsatay waxaan rabnaa inaan ogaano qowmiyadan la leeyahay 4.5ka lagu tilmaamayo dowladdaasayta maxay u qabatay brother dowladda farmaajo maxay u qabatay qowmiyadda 4.5ka ra'yigaaga ka soo dhiibo isoo qaba haddaad tiraadana waa ku soo qabanaya lama filaan abti waa ku salaamay iso baba salaan maxamed siid abdullaahi maxamed siidow waa ku salaamay adeer in badan aan ku arkaa haddaad rabti inaan ku soo qabtana waa soo qoran karta adeer shamso xuseen adna sidoo kale adeer waa ku salaamay arlada haddii lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo intee u socotaa fiiri badad ma
اسألي مجرى علي farmaajo iyo khayre aniga waxaan ku soo barbaaray xaafadda waa beri maanta xaafadda waa beri waxaa gudoomiye ka ah ninka yimid khadiijo waa ku salaamay adeer xasan weli adna waa ku salaamay khadiijan kuu soo noqona khadiija adeer ha isboobsanin arrinkaasayto insha allah biidni illaahi kariim dartaada adiga dartaada ayaan rabaa inaan micnaha sabdiga ama haddii fursad kale wax dheeraad soo baxo markaan soo galo inaan arrintaas ka hadlo waan la socdaa dadkii reer qoomiyadda baantuuda ahayd hal ningna hataa isbisiino ma aheed wax qoraalada dadka xafiisyada fadhiyaan inuusan xasan cali khayre u magacaabin waa taas waa la socdaa hadda ka horna waan ka hadlay laakiin ayadoo dhan kama aanan hadlin laakiin taas waan ka hadli doonaa ra'yigaaga waad ka dhiiban doontaa xasan cali khayre waa khaa'in ya taasayto anaa kugu raacay ma fiicina ninkaasayto waa nin danayste ah xasan cali khayre ninka aniga iga beentayn karow anaa soo geli doonaa iga beentay waayo dhe nin maanta oo kaalay waayahay adeer waa micnaha waan kaa qaaday macnaha cudurdaarka aad samaysatay maxamed siid cabdullaahi waan kaa oggolaaday inaad ohaaye ka timid waa dhii sheegtay khadkana uu kaa xun yahay kolley maalin kale ayaan micnaha ayaa khadku ku wada kulmi doonaa laakiin sidaydaba axadda iyo sabdida iyo axadda ayaan soo gelaa laakiin wax dheeraad hadduu soo dhacona maalmaha kalena waa isku soo tuuri doonaa waayo dhe waxyaalaha hadda socda wax loo adkaysan karo ma ahan waayo dhe anaga waxaaba nalaga dhigay qashiinkaaba roomba qashiinka waa la gubaaba ama qashiinka waa laga cabsadaa magaalada waa laga saaraa badaha lagu aasaa laakiinse anaga waxaas dhanba ma niiniba marka annagaa dad iska dhigi karnaa facebook laf ahaantiis ayaan dad ku noqon karnaa taas aan kugu raacsanahay laakiin waxaad yeelaysaa facebookkaaga waxaan kaa codsanayaa badanaaba micnaha inaad toobiga aad saartid dadkan iyo waxay ay yihiin dadaa jira waxyaalo kalaa ka hadlaan dadaa jira heeso lagu hadlay ayaan arkay hees annaga maanta dad hees oo micnaha waxyaalahaas oo ku hadli kara ma nihini ibnu cabdi aadan waad salaaman tahay marka taas waad ku mahadsan tahay mideeda kale gabadhii walaashayda ahayd reer waa beri wallaahi bilaa aad iyo aadan kuu salaamay adeer waana kugu raacsanahay arrinkaasayto in maanta dad meelo kale ka yimid waa beri idinka oo xaq u leh in madax la idinkaga dhigay waan maqalnay waana ognahay insha allah biidni illaahi kariim ilaaha dhibka idinka bixin kara maxamed cabdullaahi farmaajo idinkama bixin karo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre waa hal far waay maxamed cabdullaahi farmaajo xasan cali khayre asagaa doortay ya asagaa doortay maahay maxamed cabdullaahi xasan cali khayre iskiisa uma imaanin xasan cali khayre waa la doortay waxaana doortay maxamed cabdullaahi farmaajo doortay marka haddii maanta asaga uu dhihi lahaa war nin waa beri uu ku dhashtay baaba la yidhi ninka la leeyahy maxamed cabdullaahi farmaajo waa berina wuu kala og yahay cidda degan cidda maanta oo ku badan kulli waa og yahay haddii khaa'innima asaga oo nin meel kale laga keenay uu oggolaaday
دكاس مدحوينه أنا داعد أديه مايو نينكا اللي مدحوينه داعد وأواي هذا وحكة لا يسكت صوت أصبع هذا وحام بيسكو هاي سنابة إنه 4.5 وح وقبتي إيو إنكره هذه وح وقبتي وابري وح وقبل لها دتك وابري دجن أي وح وقبل لها محمد عبد الله فرماجة هدو وح ضد وح وقبتي وايو دسقيا وابري لغدلي أو كسو كوري حمر كمبهين حمر لسجوجي دجالدان وها معاسي من محل يجري بافلو أو نيويورك هذه ما أنت نينكي سلاس أها أو مساكمينتان وحبا وقوان وايي يا أو مساكمينتان علاش لدول ساري أو ما أنت مال كلا كيميد أو ملح لوغا ديغي أو أصلا رالي وكيهاي والله بالله كاسدين دا عدم محمد عبد الله فرماجو بينالا تاي بينالي أنا وحبا كاد أورسن ماي كل واحد أكتاي ماشي جاقة أتقاذن جرتي جاقة ماركتي جاقة تضوات لها أتقاذن جرتي بان جوغاني ولي أنا هاد جاق ما بقاطو SSI أنقاطا لكن أديك جاقة قاذن جرتي جاقة markii kirada guriga ee waxaas aad bixisay baabuurka waxba ma ku tareyni waad ogtahay markii jeebkaaga waxba u tari waay ayaad soo baxday xamaraad meena masaartaada iyo ambadaada iyo seeftaada u soo qaadatay ilaaha ku إلها كون نصيبي محمد قاقالي وسلام تاي شير قراي الله شير قراي فيسبوك الله دادك مساكين تكالي او عن ادودينو او ما انت شقادة كمغان اما غارك كالينا ما انت او رير افريكا اي هردوين هلي هاد عناقا عن كجرنا كله وقت دنبا ومسو جيران وايو دي أنا بس أنا هذا وحنا قبنا وقت دم قبنا الحمد لله رب العالمين مركا أنت سيتو وحنا قدسنا إن معناها الحمد لله رب العالمين ضدك مركا يسوق عن إن معناك أي أوكي مامي جولا والسلام انتاي محمد قاقالي أنا سيدو كالي برادر والسلام انتاي اوكي ninka qabasho rabaa soo qorto waan qabanayaa kolay xoogaa baa ii dhiman live-kayga xoogaa baa ii dhiman markii intaasay inta soo qorato waan qabanayaa oo maanta waxa laga hadlayana wax kale ma ahan dowladdan farmaajo maxay u qabatay qowmiyadan lagu tilmaamay 4.5ka 5ka macnaa 4ku waaba iyagaba 4ku waa iyaga dadka haniyaha waaweyn waa iyaga 5kana waa masaakiinta oo ka mid tahay qowmiyadda baantuuda ay ka mid tahay ya soo qorta waa idin soo qabanaa soo qorta adeer yaan la aamusnaanin ilaa ra'yi laisku dhiiba laisku turtuuraya leewaa waxaan haddii waxay qabteena way qabteen hadday qabanina ma qabanin waa intaas un kolay ba aniga tayda hadday tahay soo 5ka wax ma loo qabanin 5ka aniga aan ka mid ahay wax la ii qabtay ma jiraan شادر هاجي محمد اسمان علي داهر واد سلامنتين سلام سري موضوع عن كادلين وحاواي وميدان 5 كلا ليهاي 4.5 كنا لو مغعاو معناها ددك دغان سوماليا 5 كما نينكا ليهاي محمد عبد الله فرماجه iyo dawladiisa maxay u qabteen haddaan 5 ka nahay maxay noo qabteen way ninkii macnaha rabow in la soo qabto waa la soo qabanaya shaadirow ra'yigiina ka dhiibta haddii dawladdu wax qabatayna wax qabadkeeda yaan la haqirin wax la sheego idan mucaaradku wax toosin way maahe dib kale ma laha
haddiiba aad ogtiin inay wax qabatayna dadweynahaasay u ogaadaan kan aan ogeyn siis u ogaado wax bay qabatay ha la yidhaahdo hadday wax qabaninna waxba ma qabanin ha la yidhaahdo ya sheekada waa u intaas un waa dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo oo xasan cali khayrena uu madaxda ka yahay ra-iisul wasaare ka yahay dowladdu waa taas haye shubha dhihinahe maxamed gaagaale shaadir soo bood shaadir aabbaada ugaas ahaan jira soo bood abtigey xaaji maxamed xaaji ugaasu ahaaye hadalka ma gaban jirin ninkaas ma gabade xaaji madxaaji walaalkii ha fadhinin warya meesha ha fadhinin soo hadalan ku dhahay ya marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin kolley in badanna meeshan waa fadhinay kolley ba alxamdulilaahi rabbilcaalamiin nimanka magacooda maxaa ahaa nin ii sheegi kara ma jira qoladaanayto oo macnaha oo dowladda oo faalisa oo facebookyada sida cabdisalaam gentleman magaca ay wataan muxuu ahaa magacaasayto ma ii sheegi kartaan magacooda muxuu ahaa okay marka aniga hadalkayga waxaan ku soo xiraa marka hadday sidaa tahay dadkii kolleyba alxamdulilah rabbilcaalamiin aamusnaana u bateen marka waxaan rabaa okay boodhari boodhari laakiin macnaha magaca ay leeyihiin xagga nolol iyo waxa magaca macnaha oo soomaalida ay wax ku magaca soomaali ay leeyihiin midnimo qaran yes waad mahadsantihiin maxamed gaagaale waad ka baxsataan ku dhahay okay hadalkayga marka hadda waxaan gelayaa qoladan la leeyahay midnimo qaran war midnimo qaran waad fiican tihiin soomaali baad tihiin soomaali ayaa tihiin kuwan la laaynayo na walaalihiin ah waa soomaali cid kale ma ahan walaalayaalow waxaan idinka codsanaynaa amarna uusan ahayn midnimo qaran faalladan keliya aad dowladda faallinaysaan iska daaya dowladda waxay dhaliil ku qabto oo xagga masaakiintana inaad sheegtaan waay markaasaad weji yeelanaysaan annagoo dhanba waa soo dhoweyne waxqabadkoo annaga dhan waa soo dhoweyne cid diiday ma leh ya sanad guurada koowaad oo 8 febraayo dowladdii ka dhalatay soomaaliya annagoo dhan waa soo dhoweyne annagoo maraykan joogno ayaan soo dhoweyne laakiin waxaan u baahannahay maxay u qabatay qolada lagu tilmaamay 5ka dowladdaa maxay u qabatay intaas unbaa mawduuca lisweydiinaya uu yahay maahee ma ahan wax ma qabanin ma aha ma soo dhoweynayno ma aha waan soo dhoweynayna 100% maxamed cabdi adna waad salaaman tahay salaan sare waxaan idinka codsanayaa sheergaraynta una igu kaalmeeya ii sheergareeya maxamed galgaalow wallaahi bilaahi waxaa tahay nin midnimo waa midnimo qaran okay marka midnimo qaran waxaan ka codsanayaa dowladdu xumaanteedana inay sheegto
okay gabadhaas kolley hadday gabadhaas keligeed ay tahay way ku mahadsan tahay maxamed gaagaale waa ku soo qabana hadalkaygan dhammaysanaya marka waxaa waaye midnimo qaran ninka keliya laba aniga midnimo qaran laba qofood midna waan dhaliila midna waan ammaanaa ninka la leeyahay cabdisalaan gentleman oo reer burcoodka ah ninkaas waa soomaali asal ah cabdisalaan gentleman oo ninka reer burcoodka ah ya oo faransiiska jooga ninkaas aad iyo aadan u fiirsadaa facebookiisi waana dhegaystaa ninkaas waa soomaali okay waan kugu raacsanahay marka cabdisalaan gentleman waxaa waye ummaddii asaga ka dhashay ayuu ku soo celiyaa soomaalinimada ayuu ku soo celiyaa wax alla waxay yihiinna wuu sheegaa hadday xun yihiin wuu sheegaa haddaysan yihiinna wuu sheegaa laakiinse kuwa kale badankooda wax ma sheegaan dowladdu unbay noo faalliyaan maahe wax kale aniga aan ku arkay ilaaha abuurtay ma jiraan okay ninka kale aan eedaynaya waxay tahay waa ninka reer afmadowga ah oo la yidhaahdo duqbilow inuu ka hadlo facebooka xaqba uma lahaba hadduu imaqlayo duqbilow facebooka iskaga bax waayo waada ceebaysan tahayba nin tolkiisa ceebaysan inuu facebook soo istaago ma baahanba adiga waa ku ogna ogaadeen baa tahay ogaadeenna waa la og yahay dhibaatada maanta oo meel kasta oo waddanka jubbada dhexe jubbada hoose waxa jira waan u jeedna anaga marka ma arkin adoo mar keliya duqbilow ka hadlaya war yaa ogaadeenow tolkeygow waxaan dhaafa adoo leh war ummaddan walaalihiina waay iska daaya sida cabdisalaan gentleman oo uu leeyahay war yaa soomaali baad tihiin asalkiina hore soomaali baad aheedeen haddana soomaali baad tihiin cabdisalaan gentleman afkiisa taasan kahayn adiga maxaa lagaaga waayay duqbilow inaad tidhaahdid war yaahoy dadkaygow soomaali baad tihiin masaakimiintan dhibka aad ku haysaan ayagana waa soomaali dhibka ka daaya maxaad u dhihi waysa dad adiga maanta waxba kaa haysanin dad oo dalkooda nadiifsanaya mar puntlandaad gashaa mar waxaad gashaa jabuuti baad gashaa mar somaliland baad gashaa mar adoo jubbada hoose wax ka sheegayso anaga kuma aanan arag dadaa lagu dilaa si kasta lagu yeelaa adoo ka hadlaya laguma arag xamar iyo dhulkaas iyo maxaa kuu jiraadi meeshii adiga ka talisay ilaahay awooddu kugu siiyey oo qorigii kugu dhiibay ayaaba dhibaato iyo balaayo haysatee adiga maxaa kuwaas u arki waysay marka waxaan ku leeyahay daraadowna maraan maqlay adoo leh jareer waa walaalahayga marka mooski iyo cambaha waxay ku shubooyin sun yaan la iibsanin war dad walaalahaga noloshooda dhanna cambaha iyo muuskaas ah markaad tiri sun ay ku shubooyin markii laga gadan waayo war maxay cunayaan maxay cunayaan duqbilow adaan kula hadlayaa anigii adiga seefaan isku qaadanaynaa si aan macnaa aan kuu dabagalay way duqbilow ilaa aan kaa saaro macnaa social media ku dayn maayo beenaalaad tahay ya etoobiyaan baad tahay etoobiyaannimadaada waxaa waay khaa'inima kuu daba socotaa nin la soo dirsaday oo soomaalida basaasayo ayaa tahay haddaadan ahayn kii maanta aad cayso ayaad beri faalinaysa war ninka hadda wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay magaciisa iga maqane waa ii sheegi doontiin duqbilow asagoo caynaya oo leh safaaradda soomaalida washington waatan meeshanuu jaad ku gadooya sidaan kan way haddana waxaan arkay duqbilow oo ninkii faalinayo markii loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda war muxuu meeshiisii uga wadan waayey wuxuu yahay inuu sheego ilaa nin woo asagoo washington joogo oo safaarad joogo safaaraddii oo maanta soomaalida uu jaad ku gadgaday kaas nin in loo dhiibi kara miya
marka ani waxaan leeyahay marka duqbilow walaalkeyow waad eebaysan tahay social media iskaga bax social media iskaga bax marka anaga alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaaha waxna siiyaa adiga waxbana ma siin kartid anbahaynana adiga suuqa kama saari kartid awowgiisaaba suuqa ka saari waayey marka waktina waad haysataa soomaali weyntan iskaga dhex bax warkooda waxaad joogtaa minnesotaad joogtaa meesha soomaaliya oo maanta lagu soo dibin daabiyeeyo oo idihiina ay ku badan yihiin oo isku aruursadeen oo xilligii siyaad bare oo maanta siyaad bare idin gargaaray oo maanta oo idin raadiyey magac oo qaxootinimo oo xilligaasayto soomaali magac qaxooti watay ma jirin idinka aan ka ahayn ilaa iyo haddana waad wadataan heerkaasna waxaa idin gaarsiisay soomaali weyna idin gaarsiisay haddana soomaali weyntii ayaad wax ka sheegaysaa ya macnaha waad xorowday waxaad isku soo sawiraysaa adoo baawur oo saamtareel wada adoo si kale ah maxaad saanan ahay baaburkaygan saarnay kan walaa baawur maraykan waxba kama aha adig minnesota haddaad joogtidna anigna waxaan joogaa dalkii ugu lacagta badneed new york aan jooga new york ee dabadhilisnimada iska daaniyo taada xaggaasaan uga baxa cabdisalaan gentleman waad salaaman tahay salaan saraan ku leeyahay walaalkayow warkaaga meeshaada ka wad ciddii adig ku ogolaatana waa kaas alxamdulilah rabbilcaalamiin khayran kuu rajaynaa isna ilaali khayrna waa kuu rajaynaa dad aad dad u malaynaysa aan dad ku ahaynaa jira oo dugaag ku ah iska ilaali dadkaasayto waddankay kula joogaan marka intiina waxaan idinka codsanaya inaad sheergaraysaan facebookga alxamdulilah rabbilcaalamiin khayran idin rajaynaa marka intiina okay yaasiin cali waad ku mahadsan tahay taas khayr allah ku siiyo ducada meesheeda ka sii wad waxa xun aad aragtidna dadka ka celi walaalahaaga ka celi waalidkaaga ka celi maxaa sheeg ayagana laf ahaantooda beeshaan la leeyi jiray weynaha laf ahaantooda qaar dhib badanaa jira oo hunguriga laf ahaantiisa meel xun ka galaya ayaga laf ahaantooda sidaa oo kale kaa oo kale markaad aragtaan waaniya wax u sheega waa walaalkiina idinkama dheera sida aan maqli jirnay hawiyaha khaasatan abgaalka iyo jareerka waaba isku dhowiinaa la dhihi jiray salaama naas weynaa wada dhashay miyaa ma ogaa wax noocaasaa maqli jirnay marka waa kaasoo is ilaaliya iswalaashada inta meel ay isla wada joogtaan marka anagana kolleyba waa dadaalayna social mediahan intii tabartayna waxaan sheegi karno waa sheegayna adeer marka sidaasaynu ahaanaysaa khayran idin rajaynaa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin okay marka inta meeshaanayto ku jirta inta ka baxday iyo inta ku jirtaba ilaahay xaggiisa waxaan ugu barinayaa khayr caafimaad cumri dheer caafimaad ayaan uga barinaya ilaahay xaggiisa marka maamada adigna waa salaaman tahay marka aan isu ducayno caloosha aan isku furno caloosha laysku furo maxamed gaagaale caloosha laysku furo dadkoo dhanba soomaali unbaa la wada yahay
soomaalinimada ka soko muslim baaba la wada yahayba soomaalinimadaba waxaaba ka weynba muslimnimadaa ka weyn wax kasta muslimnimadaa ka weyn marka muslimnimada bal eeg kii shiinaha jooga kii meelka oo carabta jooga kii soomaali jooga haddii muslinaan ahay uu yidhaha muslim ya laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah hadduu yidhaahdo ninka daawa waaba walaaloobeenba ilaahay qulubadoodu isku keena marka tanaaba la arkoyaaba tan walaa oo soomaalinimada ani waxaanba u haystaaba tan muslimnimada inay ka weyn tahayba alla adkeeyo tan muslimnimada la adkeeyo dilka iyo dhacana micnaha la iska waaniyo xumaatada uu leeyahay marka khayran idin rajayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu